aad baan u jeclaan lahaa inaan hooyaday helo. Hooyadayna waxaa la ii sheegay inay halkaa iyo iyada iyo labadii gabdhoodba ay qabteen halkaa iyo Mareykanka markii ugu dambeysay. Kadib markaan gaarigii fuulay oo arkay inaan baxayo ayuu dee dhagax buur markaa ku socday ayuu ii sheegay inuu aaba dhintay. xilligii baan quwad jawaabtii baan gaarigii kaga tegay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني وأقول بودكاست أنا وريه ماي أنت وحايلة شوقة نندل يرى أو حوك ستة مقالة ذا تشكتشكا ما يعيسوا محمد أحمد شمال ونن كلكي ويشي كي أمان نسوري سنة خسوين كيسو هاي نقدين بدا إن وحاسس لها هاي بركم ذا بل هايدين شيء كمان سودو محمد أحمدو aad baad u mahadsantahay cali bashiir cabdi waan dhowahay kole stuudiyon ku dhowahay aad baan kaaga mahadcelinaya fursadaada siisay qariga. محمد أحمد شمال قصوين كيسة وحكمده إن وسنجرنين هويدي أبيهن الله ونحرسته وجريودي ماشي وكرهت راعي لهانا وسنجرنين الآنكن كل قصة يو شقوين فربضن أو قبته يدي بدن رسومري سجاين وجو رميدونا وحندون يا محمد إن القصة هذا بلتات كوكب اللوضو aad noo dhamayso annaguna waan dhageysanaynaa waxaana rajaynayaa dadka sheekadaada dhageysan doona qofkii garanaya in ay kula soo xiriirsadaan waalidka hooyada iyo gabdhihii walaalada ahaa ee maqnaa soo dhawow maxamedow qisadaadu halkay ka bilaabmaysaa adigu xageed ku dhalatay aad baad u mahadsantahay caliyow haddaan qisadayda ku bilaabo horta dhammaad ma laha bilow mooyaane ninkan ka hor fadhiya waa maxamed axmed jamaal waxaan ku dhashay sacuudi carabiya gaar ahaan magaalada jidda taariikhdu markay ahayd 1995 insha Allah aabahay wuxuu guursaday hooyaday iyadoo laba caruur leh oo hooyaday ay wadatay labada caruurta xaq hooyan walaalka ahayn ayuu aabahay guursaday kadib aniga aabahay u dhashay 2 sano ilaa 3 sano kadib hooyaday aabahay way kala tageen xilli ma dhalatay adigu anigu waxaan dhashay taariikhdu markay ahayd 1995 ayaan ku dhashay marka hooyaday aabahay halkaas ay ku kala tageen sidaas oo ku soo noqday aabahay dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga hooyadayna waxaa la ii sheegay inay halkaa iyo iyada iyo labadii gabdhoodba ay qabteen halkaa iyo Mareykanka markii ugu dambeysay runtii wax familkayaga ah ama adeeraday ama idooyinkay iyo hooyaday ama reebtigay oo isdhaxgal ama jirin ama ismay baran taasaa keentay inaan maanta hooyaday garan waayo ama waalidkay ay garan waayaan marka waxaa jira calow markay hooyadii aabahay kala tageen anigu aabahay Afrika u leeyahay gaar ahaan Itoobiya magaalada Jigjiga xarunta caasimadda deegaanka Soomaalida marka muddo waxaa aniga soo korisay ayeeday aabo oo iga fiicnayd ba caruurta kale inuu qaraabada nahay ilma adeerka ama ilma abtiga oo group ahaan meel ku wada deganayn aniga ka hooyo fiicnaa sababtuna waxay tahay ayeeday aabo ayaa gacanta igu haystay waxyaabaha aan dheeraa waxa kamida maalinkii waxa laga yaabaa inaan 2 jeer labisto xagga ay hal mar labisanayeen caruurta hooyadood joogtay Allah uu naxariistay ayeeday oo hadda aasan muddo sanad ilaa 2 sano aasan ayaa maadaama hareertayda joogtay ima dareensiin inay hooyaday iga maqan tahay xagga dhaqaalaha cuntada haday noqoto iyo nafaqeynta xagga waxbarashada diiniga iyo maadigaba dhawalba ayeeday baa garab taagnayd hasan noqotay ayeeday waa dhimatay marka ma dareemi jirin inay hooyo iga maqan tahay ayeeday ma haysteen inay hooyaday tahay aabahayna Allah u naxariistay uu noolaa marka waxa dhacday eedaday oo familka aabahay bahdii u yarayda ayaa ayeeday dhoofisay waxay geysay dalka Mareykanka markii ayeeday iga fogaatay oo aabahay ila joogo ayuu aabahayna dhintay 10 sano ka hor kadib marka labadaydii garab oo marka dhinac laga eego noqonaya labadaada indhood qofku labada indhood wax ka arkaa mid haday ka xuma ku shaqeyn weydo tan kale wax ku arkaysa ta kale hadaad weydo danbaad u raadsanaysaa oo aad ku tukubdo ama qof ka caawiya socodkaagi marka waxaan ogaaday in hooyaday maqan tahay ama hooyo la'aan ahay marka iyada ah waxaan baadi goob ugu jiraa hooyaday macaan hooyadii waxa la igu sheegay magaceeda saddexan xitaa ma hayo laakiin Xaliimo ayaan filayaa inay tahay si ay hadii ay daawanayso hooyaday ama labadii gabdhood ee walaalaha ahayd xagga hooyo weeyaan ay u gartaan hooyadii waxa la sheegay inay ahayd sheekhash gaar ahaan Cabdi Sheekh reer loo dhaho Soomaaliya xadiga marka
labada gabdhood ee hooyadood wadatay ma reexaan bay ahaayeen. sida aan xugo hoose ku helayna waxaa hooyaday dhashay ma jeerteen bay ahayd ayadii hooyo oo ilaa magaana dadka ka garanayn. anna waxaana ka soo jeedaa bahda hooyaday oo kale sheekaash baan ahay. ayadii aabo oo i korsayna ogaadeen bay ahayd. marka saasaa caliyo wuxuu jiraan aad baan u jeclaan lahaa inaan hooyaday helo taariikho badan oon soo maray. run ahaantii qofku dadku maanta ninka raaxa ku jira hadduu ma ogo raaxada uu ku jiro, laakiin qofku hadduu rafaad soo maray raaxada uu galo uu ogaanaya. aan kaa dhexgale labada gabdhood ee kula dhashay ee walaalaha ah mabaad magacyadooda ayaga mabaad waxuun ka haysaa? mid ka mid a amaal baa la odhanayay siduu aabahay sheegay markaan xasuusto. waayo waxaa aabahay hadda 10 sano ugu yaraan waasan yahay. kadib aabahay waxa taariikhda heli karayay aabahay baa jiray. aabahayna markuu uu dhintay umbaan ogaaday macnaha dee umbaan aqliyay si fiican u aqliyeystay. dee ciddii keliya xog ogaan lahayd ayna cid ka wareysan lahaa hooyaday magaceedo saddexan cidda ay ka tahay xagga ay ugu dambeysay. markii aan wareysan lahaa aqli badan oo igu filanna ma lahayn. sidoo kale dee mana dareemayno ayadiiba hooyo oo dhan iga wada fiicnayd. sax ku soco. marka caliyo waxaa jira hooyadii waxaa la sheegaa dadka Soomaaliya inay ahayd markii ugu dambeysay sida aan xog hoose ku soo helay Sacuudi Carabiya markay waxay ka tigisay Mareykanka ku tagtay. kadib aniguna Itoobiya gaar ahaan Jigjigan ku noolaa adu rafaad badan kadib waaniga weynaaday shaqaysta isku filan nolol badan oo dee ku faakaco soo marayna way iska jirtaa. waana dee waxa noloshii rafaadkii badnaa soo marayna waxaan ka faa'iidoon aqli badan oo dee hoosta aan ka xariiqay. maxaa ka mid ah kacaakufka nolosha aad soo martay waxaa ka mid kugu darnayd? waxaa ka mid ah horta Allah u naxariistay aabahay wax caruur wuxuu lahaa keligii. allah yarxamo. maadaama uu keligii lahaa aniga oo yar waxaan ku fikirin intuu aabahay ba dhimay isagoo noolaa inaan shaqo tago si aan u anfaco aabahay maadaama uu hooyaday garanayn. aabahay si aan u anfaco aabahay walaaladii caruur badan ayay lahaayeen. aabahay laakiin keligii buu lahaa. keligaaba ku dhahay ilaahay baa ku leh. bal inaan caruuraha kale walaaladii maadaama ay ka caruur badan yihiin inaad waxaaba isku wada dhaanto oo aabaha anfacdo yaanu shaqo tagay. waxaa ka mid ah rafaadkii dhibaatooyinka aan la kulmay. horta Kirishbay baan soo noqday intaan Kirishbay noqon baan xakan Manaariyaga waxaa jirta Jigjiga meel ay basasku ka baxaan gawaarida waaweyn. sanadkii u horeeyay waa inaan xeeraanimo ku gashaa oo gawaarida xalxaadha meedmeedha oo xamagleys ka noqota. waxyaabaha ka mid ah rafaadkan soo maray waxaa ka mid ah bari sanadkii u horeeyay gidaarkan iska seexan jiro dirbijiifans ka ahaa. waxaa iska jirtay imika dhaxamo badan baa horta lagu jira taariikhda hadda ay joognaba dhaxamahaas oo kale iska jiray busta ma haystaan dadka masaakiintii dadkaas oo kale aan ahaa. marka iyada waxaa jirtay jawaan inaan beris ka qaaday jawaan laba jawaan oo midna madaxa gashtay midna lugaha aroortii baan hurdada ku raagay. gawaari waxaa iska jirtay iskarogooyinkan waaweyn oo qashinka ururiya kuwa Oromo Soomaaliya isugu jira xawashiyo qashinkana bacwo weyn baa lagu ridaa qashin ahaan bay qaadeenba kor war idhiga waa aniga way tuureenba gaariga kugu tuureen way gaariga igu tuuri rabeen macnaha xoogii ka yaabeen way iska kala qabteenba laba bac jawaan madaxay iga jirta waan yara oo 12 sano ka hor bac kala lugaha dhaxantan waan siiriyay waxaan iska dhigay wax malaasanba bac jawaan oo qashin baa la imoodaa oo karaatoon iyo taasadiix ku jiraan jilbaha iyo xay qashin ahaan bay ku qaadeen. gooro mid baa isii daayo dhulkan ku dhaco dhagax wax ka dambeeya galayba. kadib adoo dee markay idhiyaan nimankiina yaabeen waan iska kacay oo way toosiyeen baraarujin bay noqotayba waan iska qori tagay iyo xayraanimadaydi waan iska galay. waa gartay sidii nin la toosiyo ka shaqo tagla yidhi marka ay toolaano labadii jawaana dee wax kala ma haystee gogol iyo bustaba iyaga ay ahaa meel baan dhigtay ilaa waan ku soo noqonayaa kama maarmee. kadib waxaa jiray sanadkii labaad adu hadeed bas Kirishbay caadiya noqday sidii baan gawaarida ku raacay nin la aamina noqday 11 sano ugu yaraan yaan birta ka shaqeynayay 8 sano waxaan ahaa Kirishbay ilaa 3 sano ilaa 4 sano waxaan ahaa Dirawal. markii dambe waan dalcoodii aniga Dirawal noqdo nin gaari ka haysto gaari lagu aamino noqday oo wajaaliyo Jigjigiyo waxa xagan guday qabidahar dhanaan shilaabo burqad toos xaga bariga taga ayaabaan ahayd anigii baba Kirishbay ka haysanayo ku yaro kale ka haysanayo wixii aan soo maray waan ka gudbay. anigoo dhinacna hooyalaan dareemaya
anoo sidiiba la soo sheegay markii dambe aabahay oo joogay inuu aabahay dhintay marka runtii anoo gaadhi ka shaqaynaya ayuu ku yaro ilmaabtinahay yimid uu yiri aaba xanuunsanaya ilaan aaba ma xanuunsanaye anoo faraxsan buu iyo arkay oo iga qasnayn oo biriyo kala ciidahay waan rabadaan wuxuu isii ka qasin ee bal xanuunsanaya isagoo xogta waa ayuu aabahay dhintay sidii iyada ahayd buu sheegay markuu arkay inaan u baxayn oo nidii xanuunsanaya aabahay Allah caafiyo isagoo baan baqaree waan wallahi hadii doonaa maanta gaariga kama digay inoo kirishbay kadib markaan gaariga fuulay oo arkay inaan baxayo ayuu dhagax buur markaa ku socday ayuu sheegay inuu aaba dhintay xilligii baan quwa jawaabtii baan gaariga kaga digay kadib waxa ay banaanaaday daaqado badan iyo ilbaabo badan iga oodnaa yaa ninkaygii shaqaysanayay wada moraalka ahaa ee isku filaa dib u socod maaba hadii bilaabay marka iimana hirgelin hadda ka hor inaan miidiyaha tago inaan raadiyo fursad sidan oo kale ama helin inaad waalidkaa raadiso hooyada fursad okay shaqadii ku soco marka kirishbaynimadii waan ka talaacay markii dambe darawal baan noqday darawalnimadii 3 sano 4 sano markaan ka shaqaynay waxa iska jiray dhibaatooyin badan oo birtu la kulantay wajaali iyo xaggan ka shaqayn jiray markii dambe iyo boorami xaggan waxaan shaqadii markii dambe u daayay meel xaggan oo magaalo qaran la dhaho iyo xaggan oo boorami markaa tagayna geebo la dhaho oo inta badan gawaarida aad loo baari jiray taayarkana lagu waran soo fur kala tuur waxa ku jiray waa qasab inaad furto marka dad qaar ciidankuna ma qaldan inuu qaar wax ku soo ridi jiray way jireen ku daacadii nagu jiray kuwii sida iyadoo kala ah daacad ahaa baa loolanayay fura telefoonkan fur shaqadiiba waxaanu nacay marka laba boorso oo imika boorso waxa iska jirtay bari oo nin wato iyo boorso ay gabadhi wadato rakaabkii waxa la oranayaa dareer oo lugaya xarinka keelaaga hortiisa taga aniga la oranayaa rug labadiiba inta rugo la isku dhaxlaaqi maalin waxa jirtay intaan dharkii kala aan tii ninkan aan boorsadii gabadha ugu riday tii gabadhana aan xagan kadib gabadhii baa waxay guddigtay marka wajaala soo kan midnay ayaa gabadhii diri xaga ay jooji jibriga waan joojinay isoo dajii boorsadii waan dajiyay gabadhii markay xaafadda tagtay ma aragtay gabadh baa buure iyo shortigii kubadda lagu ciyaarayay iyo ciyaari isboortiga iyo xijaabkeedii iyo diracii iyo wixii bay weeday markii dambe wiilkii markuu dagay inuu eegay dirac iyo googorad iyo boorsadii warwaasii waa kaani qabsaday waxaan ku wuri boorsada ay tahay ila dhaf boorsadii way tahay dharkan ku jira dharkan anuma naag baan haweenka yiri googorad baa ku jirta dirac baa ku jira xijaab baa ku jira niqaam baa ku jira kooshali baa ku jira waa xisaabtan ninkii sidoo isagoo anagan haysta ay gabadhii naga noo timitay war boorsooyinkii ma haystaan dharkan soo ma aha kala bedesha marka rafaadkaasna markii dambe iskaga daayay kirishbaynimadii iyo darawalnimadii kadib xagan magaalada maadiyaan iska joogay xaafadan iska deganaa shaqo kale aan sidii baro shaqooyin sida waa maadaama la horumaray shaqooyin saacada aad qabato kooban waan ku sheeka dhaafay mid labada waxa jira dhibaatooyinka ay birtu leedahay ama kirishbay noqoto ama darawal noqotay iyada waa iska bulad xaqaas ku badan tahay kursigaas leekaysiin soo sixanaysa kolba meesha uu gaarigu joogaa gurigaaga ah hadii iska bulada la baaro xaqaas ku badan tahay marka iyada xilliyada dhan walba noqotay la raaxaysanayo adu waa inaad rafaadaa ama kursiga dhubri aad ku seexataa ama aad gaariga garaacdaa marka adu xaalado badan marka dhan walba eegay way waxaan isii khibrad aad haysataa iyada ka gudub adoo haysataa waxaan bartay hadana electroniga xagan lightka iyo wax wiila saaxiibanaho Cabdifatax Maxamed Xasan la dhaho oo jaarnan haybaan yaan yiri waa kula shaqeynaya hadid iraac deewaan iska raaci jiray wiilkii waan hal maalin waxaan arko baalika labaad ma sheego macallin baan ka noqdaa kadib wiilkii baan khayraalaasiye ka faa'iiday wax ka bartay calow sida rubda ahaantiina jirtaan qofka haduu wax ku siiyo lacag maanta ku siiyo 9 milyan ku siiyo lacagtaas bari way ka dhamaan hadayna ka dhamaan waxa laga yaabaa Itoobiya oo laga qaxayna kaga qaxdo lacagtaadii lacag baan lahaan jiray kaas cunmayso laakiin ninku haduu khibrad ku baro khibrada wiilga waad ku shaqaysanaysaa wax dhamaanayo ma xitaa hadii wadanka la tagto khibradaadi waad wadanaysaa aad baan uga mahadcelinayaa wiilkaas marka waxaan bartay lightka dhismaha guud ahaan lightka ama 3 phase kan tiirasha ha noqdo ama lightka kale guriyaha ha noqdo khibradaas oo dhameystiran ma hadda ku shaqeeyaa dad badan waxa jira magaalada Doongare iyo Majarfad la shaqo taga anigu run ahaantii waxa la shaqo taga labadaas
waa kalbada iyo businesskaas marka dirawalnimadii iyo kirishbanimadii aad baan uga raystay hadda leydhkaasaan ka shaqeeyaa waa saasay cali wuxuu jiraan leyrka dhaqaale ahaan bishii meeqaa kaa soo gasha aad ku shaqayso 30,000 ilaa 40,000 iga soo gashaa bishii haa oo waxaa tahay Adoo dool- subaxdii markaad soo toosto magaaladaas gashaayo kolba Haa. xaafadaad ka soo xidhaa ها بروجرام إلا ولا يسوي عجب أما حالي ولا يسوي عو شغال يقول يقول عصب والله اللي قلني أما عليه حماضي عليه ذا قلني قال لي إنه وحن قال لي يعمل مشاهرة oo dowladda aad u shaqaysaa ها kolka oo leydha. shaqadii darawalnimada ahayd tana kuu dhaanta ها شوي واحد جري مرة كل واحد كادو فرسمة دي وانا قانا قال لي سيدي مع على الشقة دي حتى نيني واحد نيني وانين درا والله يشتري كون هيا قال لي قهدو حماضو نينو الله ضيا أنا قال لي أنا وطا أما كحيو نيني كمان شقيني واحد لحامد هين وجبا marka mechanic baato Haa. waa taqaanaa birta ها سيف يعني وكسو قاريga aan ka shaqeynayo jab haduu jabo diyaanu lixaamid bihim lixaamidi karo waa laga yaabaa in geerisho baahdo laakiin haduu si kale u xumaado waan isku filaanahay khibradiina waan haystaa wali ma kugu filan yahay mushaarka aad qaadataa waxaan malaynayaa dee 30 kun ilaa 40 kun adiga waa kaa badan yahay hantii laaba tahay marka ha hoo iga badan yahay waaga hore waxa iga badnay 10 kun cali horta Haye. afku waa weynaada kolba imika iguma filan dareemaya waagi hore 10 baa igu filay macnaha marka dhaqaalo sii wato hankaaga iyo afkaaga waa sii weynaanaya duruufaha noloshuna way sii waxa jirta horta de sidaan ku sheegay calo waxbaan yar curiya waan saacana yidhi duruufaha nolosha ay la sii durkee waqtigaa dib u dhigay miyaan diidi karaa macnaha dadka qaar baa oranaya waxaan aad ku jirto waa sidii maad ka baxdid war uma hayo in jiyaa lagu jiro nimcu iskaga jira dadka sidiisoo kale moodaya marka anagu waxaan ka jawaabaya waxaan idhi duruufaha nolosha ay la sii durkee waqtigaa dib u dhigay miyaan diidi karaa marka adu way igu filan tahay marka hadii de inkastoo waxaad isku filaysiisa unbaa kugu filaanaya maanta haddii qada lagu keeno nafara oo de wiil kale kula joogo qadada hataad ugu tala gashay inaad labadiina wada qadiisaan way wada filan way qadinaysaan hataad laakiin tiraahdo ani bay ugu filan tahay kolba saad ka dhigato weeyaan maxaad jeclaan lahayd inaad ka shaqayso kale hadda والله de kolba horta leyrkood waa iska fiican yahay laakiin hadana shaqo lagu waari kara ma waa dhimasho macnaha markasta weedkaad wadnaha farta ku haynaysa waa hal mar oo wada leyrku gacantaada taabto wadnuhu ku dhacaa dad badan oo dili baa iska jira boosaska laakiin markaan eego xagga arrimaha bulshada bannaan waxaa jira in xagga warbaahinta aad baan uga liidanaa xagga warbaahinta muddo badan ayaan raadinayay meel aan ku soo bandhigo waaban iska ilaabay horta tan waalidkayga ah waxaas maadaama wadi duruufii badana aan ibka iska shaqaysto sidii hore aan yara dhaamo waxa igaga adkaatay waxaan iga dhex guuxaya meel aan ku soo gudbiyo gabayada maansooyinka aan sameeyo wax warbaahin deegaankeena kaba jirta calow maba muuqataba murti baa kugu jirto ku gubaysa Soomaa ha aad iyo aad marka waxaad lahayd meel aad ku soo bandhigto meel aan ku soo bandhigo ma jiro ha waayahay dadkaan mar kale xasuusiyo ninkan walaalkeena waxa uu raadinayaa uu jecel yahay inuu helo hooyadii iyo gabdho walaaladii ah oo uusan dadka ka aqoonin laakiin loogu sheegay kulkii u dambaysan ay Mareykan joogaan waxaan rajaynaynaa haddii ay fariintaasi gaadho inay si degdeg ula soo xiriiraan insha Allah hooyo waa lama huraan waxa hadda ugu muhiimsan waxuusan ka warqabin in ay dhimatay iyo inay nooshay hooyadii saadaradeed Allah soo dhaweey arinta aan u soconno goorma murtidu kugu soo meexatay ninkaagii dan yarta ah kurshbeyga ahaa murtidan iyo adiga xagaad iska hesheen anoo ku dhex jiro maan saarkay horta waxaan arkay meelo badan oo video taawado waxaan kugu jira soo waa wax dadka loo soo bandhigi karo maaweela ah dad badan baan ka arkay abwaano badan baan ka arkay wixii igu jiray oo kale ha u tagin shisheeyaha dawarsiya shaxaade shaqayso dhulkaagu shilinku yaalaaye shaqsi jecel baan ahay sharciga iyo sinaanta iyo sharafta Soomaaliyeed waxaa jirta adoo ilaa 8 sano waa igu dhex jira hadda waxaan hayaa 100 way gaariyaan gabayada iyo waxaan sameeyay waxyaabo badan baa meel aad ku soo bandhigtaada helin imika Chinese-kii ugu weydaa aan helay ayuu noqday bartan calow College Studio sooda kuwa aad ugu jeceshahay bal suugaantaada nala wadaago sooda jacayl baa ka mid ah imika maasa jacayla waxay oranaysaa quruxda jirkii iyo wajiga qof aan kula simo hablaha qarnigan kuma arag dunida qaado naftayda hoo qudhiya taadana isii adaa qiimahaygii kor u qaadayo inaad qaali tihiyo wanaagaagan qiraya
qofkii jecel qiimahaaga waan qadariyaaye allaha qaadiryaha isku keen qore qasnadaha jidhkiiyo qayb ka mida naftaay qalanjadii jigjigiyo qoraxay u dhalataay qorshahayga kama bixin qoys inaan wadaagno qof kale ma siiyeen qalbigaiyo naftayde kaalay quruxda nolosha aan qaybsanay marka cali ona soo koobaya taa waa maanse cajiiba haa waxaa jirta maanse aan ka sameeyo kale iyadoo aad ku dheerta waa waxaan ka sameeyey macnaha haddii laba qof oo isjecel oo laakiin waqtigu kala geeyey jacaylku maansada hadda jacaylka aan kaa dhex gale ma adigu kugu dhacay jacaylku maadaa naftaada ka tiriyey misane qof kalaad ka samaysay nin aan ogeyn oo maalin waramayey oo ilaa imika aan ogeyn unbaan is yidhi hadduu ahaan lahaa halabuur ama awaan noqon lahaa wuxuu u tiran lahaa tiri ilaa imika ma ogo wiil saaxiibkii u waramayey oo anigaan saaxiiban nahay isagaas maanaan aad u aqoon laakiin wiilkaasaan garanay wiilkaas uu waramayo marna telefoon buu ku hadlayey bartii manana maray isagoon ogeyn manaysti qoray adigu jacayl ma kugu dhacay haa waa iska jiraan calo horta jacaylku inta badan dee nin weyn oo intaa daadaas oo intaa leeg maqalka iyo muuqaale oon jacayl ku dhicin haddii aad aragto waa waxbaa yar jira markaa kaasi waa jiraa laakiin waxaa dee horta jacayl aan dhaqaale wadan jacayl maaha ogtahay mana waaro oo dee wuxuu ku dibaa inta badan daruuriga iyo duruufaha jira dee duruufaha jiriya daruuriga dimiya marka qof nin dhaqaale la-aan oo hanti la-aana jacaylkiisu meher galad leeda dee haa waxaa ku dhaamaya kaa aan waxba jeclaanaya lacagta haysta farxadda dadku inta badan waxay aaminsan yihiin jacaylkuma keena lacagtaa keenta waxay ku oranayaan dadku lacagta waxaad ku baahato lacagta waad ku soo iibsanaysaa dee markaa waa arrimahaasa iska jira wallaahi de waa hadda maadaama aad shaqaysato lacag kugu filan aad qaadato dee nin dhalinyaro oo raggu meesha ugu xoog badnaayeen jooganaad maxaad u guursan weyday horta calow duruufo badan baa iska jiray anigu run ahaantii dhul aan dega ma haysan guri aan ku hoyda ma haysan hooyo iyo aabba aan ku tiirsanahay ma haysan iyadoo taasuu jirtay soomaalidu inta badan waxay tiraahdaa war ilaahay baa wuxuu kuu qoray lama waaye iska guurso laakiin waa nin iyo dee dabeecaddii iyo nin iyo fikirkii mar haddaanan meelaan degan aanan haysan saddex baa isku kibirtaan horta hooyo iyo aabba aan ku tiirsanaaday ma haysan dhul iyo guri aan dego ma haysan farsamo fiican oo ku shaqaysto ma haysan saddexdaaba haddaad adoon haysan dee gabar soomaaliyeed inaad lugayso way ila qurux badnaan weyday inaan saddexdaa midun helo ugu yaraan waan ku fikiray iminka saddexdii laba waan haystaa alxamdulilah dee ma odhan karo iyada camalaan baan ahoo shaqo igu filan waan haystaa haddaan isku fileysiiyo weeyaan haddaan isku fileysiiyo shaqo igu filan waan haystaa sidoo kale hadda meel aan dego iyo guri aan degana waa haystaa dhanka keliyabana waa dhanka waalidkana dee aabbana soo noqon maayo ilaahay ilahabaa qaatay hooyana hadday nooshahay waa la heli haddii la waaye iyadana labadii gabdhood baa la heli walaalaha hayn marka haddaan ku tala jiraa insha allah dee haddaad kolba saad jeceshahay ma noqotee hadduu ilaahay yidhaahdo bilaha nagu soo wajahan inaad qayb ka noqotana waan rajeynaya insha allah qayb baanu ka noqon doonaa golo studio hadduu ilaah yidhaahdo reerka waxaa weeye waanu ka qayb qaadanayna noloshii africa waxaa jirta waan saa sameeyey moogtahay anoo dee anana qayb ku darsaday inta badan marka qofka wax kula wadaago dee waxaa laga yaaba waxa kula wadaagay inay gaaban tahay si ay maansadu yara hagaagsanaato anaan ku darsaday inta aan ku darsaday waxaa ka mid ahaa jacaylkaagu aragsanay wadnaha agtiisa iyo qalbigu abbaare waanigii ayaamo qurux badan joogay agtaade noloshii africa markay adkaatay baan tegay ameerike wadnahan ololaya daraadda oomanaha ooyin ilmada cishoo dhibtii hore ilow adkayso naftayda ee aamo inkastood cidlootay intiiyaan maqnaa imikaba hadduu ilaahay ku keenay inan yahay farxad iyo imikaba hadduu ilaahay keenay inan yahay farxad iyo istariix ku noolow agtaada inaan daayo miyaan awoodi karaa qalbiga amarka diidiyo nafta iga adkaatee alla ilaahe farxaddii adduunka weeyaan agjooggaaguye edabtiiyo xishoodkiiyo akhlaaqda fiican eebbaa kugu manaysto asaagaa waxaad dheer tahay asluubtiiyo dhaqankee ogow intaad asturan tahay baad qurux iyo ammaan leedahay haddaad aqalkan ku noolaa ardaagiisa timid haddaad agtayda inaad joogtiyo araggayga jeceshahay haddana afkaagii xishood aamusiiyey aniguba miyaan anfacada dhammaan
arooriyo habeen afka saaraya ololkii caashaqaaga oonta iga jaro haddaadan agtayda joogin noloshu aya male iftiinkii dunidiyo ifkaay ilayskii qalbigiiyo indhahaay aqligiiyo garaadkiiyo adimadan ku joogaay awooddii xiskiyo aayihii noloshaay aqoonsaday jacaylkii markaad igu abuurtee abaal baan kuu hayaa intaan abidkay jiri afka uma furo hablaha aynigaaye afka uma furo anigu hablaha aynigaaye adaan aayihii nolosha kugu aamine adkee xidhiidhkiiyo axdigeenna oo ilaali weligaa intaad nooshahay waa ka jacaylkan daadu kugu dhacay malaha haa waa iska jiraa laakiin qayb ka mida omaan ku darsaday sida macnaha tusaale adoo wiil baa qayb ka midaan lahay qaybna qofkaan ka sameeyey maadaama yaro gaabanayso maasuna loo yar waxaan ku weydiiyey aduu halkan abaad joogtaayo kolka ma ruuxdaada maraykan geysi may ruuxdaada maraykan tagtay macnaha marba waxaan tamcay labada qof hadii macnaha qofkii adoo jecel inaad shaqo tagto meel dhaanta aad u shaqo tagto uu qofkii ku mooday inaad neceb tahay marka waxaan leeyahay jacaylkaagu aragsanay wadnaha agtiisa iyo qalbigu abaaray waanigii ayaamo badan joogay waanigii ayaamo qurux badan joogay agtaadee noloshii afrika markay adkaatay baan tegay america macnaha wadii baan ku maqlaa weyaan imikana soo noqday haddana haahee maba aada tegine haa ma ruuxdaada tagtaan kuleeyahay america kadib maxaad gabadha been ugu sasbaysa wuu isbedeli karaa waqtigu adoo jeclaa inaad shaqo tagto meesha meel dhaama tagto yaad heli kartaa shaqati ka fiican waa intaana shaqooyinka fiican aan helin waayahay bal waxaad naga warantaa guurkaaga hadda guurkayga horta calow iyo arrimahan jacaylka ee hadda laabtaada degeed ii sheegaysa hadda calow guurkii waxaa dib u dhigay iyo jacaylkii duruufo nololeedoo jira marka waxaa jira maasa qiso dhaba ah oon ka sameeyey naftayda mar aan damcay meeshan meel dhaanta inaan u shaqo tago inkastoon kadib markii dambe aan iskaga bedelay oon dib uga laabtay maasadaas waa qiso dhaba waa maase aan anigu iska sameeyey maasadaas waxay odhanaysaa sidan jacaylkaagu aragsanay wadnaha agtiisiiyo qalbiguu abbaaray waanigii ayaama qurux badan joogay agtaade noloshii afrika markay adkaatay baan tegay amerike wadnahan ololayaa daraadda oomanaha ooyin ilmada ceshoo dhibtii hore ilow adkaysoo naftayday aamo inkastood cidlootay intii yaan maqnaa imikaba hadduu ilaahay keenay inan yahay farxad iyo istareex ku noolow agtaada inaan daayo miyaan awoodi karaa qalbiga amarka diidiyo nafta iga adkaatee allaylehe farxadii adduunka weeyaan agjooggaaguye edabtiiyo xishoodkiiyo akhlaaqda fiican eebbaa kugu manaysto asaagaa waxaad dheer tahay asluubtiiyo dhaqankee ogow intaad asturan tahay baad qurux iyo ammaan leedahay haddaad aqalkan ku noolaa ardaagiisa timid haddaad agtayda inaad joogdiyo araggayga jeceshahay haddana afkaagii xishood aamusiiyey aniguba miyaan anfacada dhammaan arooriyo habeen afka saaraya ololkii caashaqaaga oonta iga jaro haddaadan agtayda joogin noloshu aaya male iftiinkii dunidiyo ifkaay ilayskii qalbigiiyo indhahaay aqligiiyo garaadkiiyo adimadan ku joogaay awooddii xiskiyo aayihii noloshaay aqoonsaday jacaylkii markaad igu abuurto abaal baan kuu hayaa intaan abidkay jire afka uma furo anigu hablaha aynigaaye adaan aayihii nolosha kugu aamine adkee xidhiidhkiiyo axdigeenna oo ilaali weligaa intaad nooshahay waa la dardaarmaya gabadha waxaan leeyahay intaynu dhaqaale aynu helayno aynu dee ku anbabaxno adkee xidhiidhaha maasha allah waayahay aan kol kale dib usoo noqdo arrintii hooye aynu dib ugu soo laabano waxaan rajeynaynaa horta in ilaahay soo dhaweeye hooyada isku kiisoo simo marka waan dareemi karaa nin dhalinyaro ah oo ilaa aynigana oon hooyadii aan arag marka ugu dambeyn maxaad wallaahi calow hooyo la-aanta nin horta hooyadii joogto ama hooyadii haysta ma dareemayo waxaan dareemayo waxaa iska jirta imika wiil saaxiibkee marka loo yeeriyo hooyadii oo kale ama ila soo hadasho mararkaasoo kale waxaa yaro galaa anuu muud aan qofku i dareemayn anoo dee farxad qofkaa yaro muujinaya laakiin waan maqanahay macnaha hooyadu qeyb libaax bay nolosha ka qaadataa
aad baan anigu u dareemayaa qofka sideedoo kale markaan arko dhiirigeliya anoo taydii aan botaqla tiisa dareeraadka kala ku daran ma maqashay ma jirto anoo taydii meel saarin baan tan kale ka macnaha waxaan dareemayaa sideedoo kale uu yahay moogtay marka hooyadu qayb lixaad leh ka qaadataa koritaanka maskaxda iyo dhan walba marka aad baan u jeclaan lahaa inaan hooyada helo waxyaabo badan oo iga maqan ayaan heli lahaa xitaa waxba yaan ku darin hooyada haddaad hooyada haysato dhiirigelin baad helaysaa sidaan hadda ka hor kuu sheegay inay aabahay markuu dhintay ninka ilaan awalba aabahay lama shaqayn jirin keligii baa shaqaysan jiray inaan keligii oo shaqadaas u sii wado halkay ahayd dib u socod baa igu dhacay markuu aabahay dhintay saa daraadeed aad baan u jeclaan lahaa inaan hooyada helo daawadayaasha muuqaalkayga soo gaadhay waxaan leeyahay muuqaalku si uu meel dheer u gaadho like-ta share-ta subscribe u sheeg taleefankaaga halkan uga sheeg si lagula soo xidhiidho haddii ciddii waalidka maarta kula soo xidhiidhin karta ama akhbaar ka haysa ama reabtiga aad baad mahadsantahay calow waa fikir fiican ciddii daawadayaasha waxaan leeyahay ciddii hooyaday garanaysa ama walaalahay garanaysa hadday hooyaday nooshahay hadday dhimatayna dee waa allah u naxariisto hadday nooshahayna inay la soo xidhiidho iyada iyo labadii gabdhoodba waxaa laygala soo xidhiidhi karaa oo laiga heli karaa calow laba waxaan sidaa lambar waxa weeyaan eber 9 52 buura ah 38 eber 7 waa lambar Ethiopian lambarka kalena waa Safaricom wuxuu oranayaa eber 7 eber 4 62 71 buura ah ajiriyo abaalba waa ugu jira qof kasta oo ka qayb qaata soo helitaanka hooyaday waxaad ii sheegtay inaad doonayso inaad xamar u aad arrintaa darteed yarkii barnaamijkii samayn jiray cabdicasiis isagana fariin baan u diraynaa insha allah hadduu barnaamijka arko inuu ka qayb qaato oo la sheer gareeyo aad baad mahadsantahay calow meelaha banaanoon ilaabay bay ahayd waan kuu sheegay hadda ilaga far macnaha markaan saa u eegay deegaankeena ma jirto dad miidiya oo arrimaha bulshada ka shaqeeya waxaan ku fikiray hadda ka hor sanad iyo 2 sano ka hor waxaan ku fikiray inaan Muqdisho Soomaaliya u tago anoo arrin kale aan ka rabin si aan ula xidhiidho oo qayb uga noqdo xitaa lambarkiisa WhatsApp-ka waan kala xidhiidhay si kala malaha loo xidhiidhayo way hirgeli weeday Cabdicasiis Ilintir on halka iyada ka baafiyo waa ku fikiray imikana Ilaahay meel ka dhowbiyay waad siba dhaanta insha Allah may waxaan rajeynayaa asxaabta nagu xiran waxaan ka codsanayaa ninkaas inaad la raadisaan waalidkii hooyadii iyo gabdhihii walaaladii ahaa waxaan rajeynaynaa insha Allah bidnillaahi kariim sida ugu degdeg badan in la helo taleefankaana ay kala soo xidhan haddii la helo hoostana waan ugu qoraynaa aad baad u mahadsan tahay soo dhow wadhowahay cali waxyaabo badan ayaa jira daawadayaasha qiimaha badan qisooyinku ma yara qisooyin aad u fara badan iyo suugaan kala duwan oo dhan walba ka hadlaysa xitaa waxaan isku dayayaa tayda iyo tiinaba inaan suugaan ka hadlaysa soo gudbiyo iyada waxaad ku faraxdaan insha Allah waad naga filaysaan